maalin dhaweed waxaa dhacday gabar Soomaaliya bal hooyo Soomaaliyeed nolosheeda khaaska ahayd horta ay soo sawirtay ana arinta oo ah nolosheeda khaaska inay soo sawirtay kuma taageersan laakiin waxay soo sawirtay ayadoo ninkeeda wanaag u sameynaysa ihsaan cagay u saliidaysay lugiya ka shumisay ninkeeda muslina gabar muslimada nin muslina qabo Amerikaana hooyo Soomaaliyeed way ilmay dhashay ilmaydan waliba ilmay dhaleen gabadha Soomaaliyeed dada waxay dhaheen gabadha Soomaaliyeed nin ajnabi cagaa ka shuminaysa ajnabi miyaa nin muslim bal dad culimo la sheegay shaar culimo leh ama muxaadara ina qabteen dheen gabdhaheena markay ajnabiga guursadaan ee ajnabiga lugaha u dhaqdhaqaan gabar Soomaaliyeed nin nikah xalaal ku guursatay ma ajnabi ka ajnabi moo ka yahay mis anaga casabiya jaahiliyadii oo caamado kala loo hadlaaya innamal mu'minuuna ikhwa ajnabi waxa la yiraa gabar muslimada ninaanan qabina ajnabi uu ka yahay gaalna ajnabi uu ka yahay laakiin gabar muslimada ninkeedii in ma taqaana haday cagaa ka shumiso gabdheena baariyaal ma ahli ayadaba Soomaaliya baariyadaha haday ninkaas u sameysay nin Soomaaliya haday u sameysay xataa inay sheegida ka xishoodana dhici karto aysan soo sawirin laakiin gabadhaas ay ku dhiiratay anigu lama saxsan inay soo sawirtay waxa ay la qaldan in lagu dacaayadeeyo gabadhiba aad loo qaado oo amba casabiya jaahiliya lagu la hadlo oo la yiraahdo nimanka ajnabiga ajnabi see u yahay waa ninkeedii waxa ajnabi ka dhiga Amerikaan ma guursan karto gabadheena way guursan kartaa in kaana musliman Indoneesiyaan ay guursanay in kaana musliman caado iyo taqaaliid waa la isku khilaafi karaa waa ognahay masalaas way dhacda laakiin diin ahaan ajnabi ma aha mid kale gabar nin nikah xalaal ku qaba ajnabi miya rag culimaana soo fadhiisteen waxay ilaaleen gabdhaha saas yaqaanin rag xataa Soomaalida markay gabdhaha ajnabi guursadaan ajnabi maxay ka daawaba guursadee maxaa ajnabi ka dhigay gabaruba guursaday waaye ajnabi miya ajnabi lama dhihi karo waa afxumo iyo war caamo waa culimo inay ku hadashaan munaasab ma aha waana qalad oo faham diin ahaan loo galay waa gabadha Soomaaliyeed baarinimo looga maroona waa baariyaal gabdhaheena laakiin waxa jiro caado iyo taqaaliid nooca ma dadku acraab abayaal geel wado geel dhaqa jir iyo hooyooyin baadii joogi jiro reer guuraha laga soo jeedaa qaaliban Soomaa dadkaasna nolosha jiljilic badan kuma jirto laakiin diin ahaan maxaan ognahay diin ahaan gabadha ninkeeda inay la qubaysan karto ay lugaha u dhaqi karto oo asaga u qubay karo ay u qubay karto bal hadoo dhinto gabadha ninkeeda way dhaqi kartaa asagoo nolona ma u qubay kartaa way u masaajay kartaa way u masaajay kara nolosha wasaas gabdhaha inay ogaadaan laakiin nolosha raxmada laga saaro amba hadii raxmad la arko in raxmadiba la dacaayaday idab darro waa in nolosha raxmada laga saaro waa qalad gabdhaha Soomaaliyeed waa baariyaal la gabadhu waxuusan ninkeeda barin amba uusan u sheegin ayadu way ka xishood badan tahay inay ku dhiirato ma sameynayso Soomaa laakiin ninkiiba doo geel jiray yahay oo amba qamiis leh amba garabaati la geel jiranayahay laabtana geel jira ka yahay intuu raxmad iyo kalgacayl ku arka hada koor xareer isqaba dacwoodo rag culimahay u dacwoodaan maalin kasta dacwa taal gabadha marka la yiraahdo war maxaa dhacay wax la sheegay marka dambe nin reer magaala wuxuu yiri gabar walba wuxuu yiri gooniyan ku raba guddi u soo dacwoodaan moogtaa guddigu yiri aniga isugu ana warbixin soo diyaaray gabdhiya gooni loo wacay waxa la yiri gabdho warrama dacwadan koray korka iska dhaafo maxaa jiro oo qaryo weysid mar walba waa xalina man xalismato runta noo sheega maxaa jiro waxay dhan anagu rageena hadal jilcana kama hel namana salaamaan nalama sheekaystaan ilaa habeenkii muraad leeyihiin ma ahane isma aragno xaaje gudasho waxay dhan raxmad iyo kalgacayl iyo sheeka xariir iyo walaalow ma naga dhaxaysay ninka waa sheekh amba waa reer magaal amba waa ganacsade laakiin dhaqankiiyo ka yahay acraabi labiski waa ka culimo amba kala labiski waa ka reer magaal waa aqoonyaan amba waa ganacsada weyn koofidiisi barawaaniga wata wax uu dhaqankii baadii ka bedelayna ma jirto marka gabadha way dareeme adduunyada maanta way ilbaxday moogtaa gabdhihi xog badan ay helayaan diinti xataa xog badan laga helo wax badan oo la qari jiray alla isu sheegay moogta marka wadaadkii muxaadaro u qabtay ragii iyo dumarkii oo deegaanka deganay dhana la azumay muxaadaro u qabtay marka muxaadaro qabtay oo wuxuu ka sheekeeyay noloshii nabiga oo kula noolay reerihiis markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa markuu soo galayna uu dhunkoon jiray markuu baxayo uu dhunkoon jiray wuxuu yiri uu la tartami jiray uu la kaftami jiray wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la haasawo jiray habeenkii marka la gaaro hadii ay soo jeedaan xaasaskiisa markuu salaadiisa dukado cibaadada dhameeyo xaasku uu la haasawo jiray uu la sheekaysanay ilaa waaga ka bariyo hadii soo jeedo
وحيو كشيكي وحو كشيكي واسلقوا بيسجرينو بيد إيداف أنيق ويلكي إسدهاينو مركو وحي كشيكي نين كان يا النبي كقبتو يري ور نين كان يا النبي كلقبتو يري يا معناها نولش أو ربا وحيتها موقتها نولل قلفسن أو كبر بار النبي صلى الله عليه وسلم هدان كشيكي نولش النبي أو قيس كيس كل نولا وحن كنول نهاي نولل كفوق دين الإسلام علينا مركو واحد الرادية الرمجان لما دين تكجرا النبي صلى الله عليه وسلم جلاس كما شيء ككبوتي وككبول وعكوت على في إنه لوق عرب كين عكوت على النبي صلى الله عليه وسلم ها علماء وعكالة هداي صنتاي ما هو بنانتاي مدوقي كرا أو درر كذي على جاي إنه أفكيس جلا أيضا أفكيس جلا ما بنان mayo markaas soonku wuu buraya marka ma maqlaysin ala hal waxaan idin sheegay mas'alada reeraha ku saabsan dib ha loo akhriyo alxayaatu zawjiyya islaamka guursado waqti badan baxay waxay toosi karaan ha toosiyaan ama gabdhaha yar yar hadda iska fiiriyaan ninkan ha weydiiyaan soo baro sida reer loo dhaqo intaadan iimaan ha soo tiraa meeshay shukaasi ku dilay dacwada 7 saac wax beena la isu sheegi lahay ha tiraado kutubada xayaatu zawjiyya ku saabsan soo akhrisa sheeqow ka bacdi iimaad adoo wax og ha tiraado hadii kale nolol cariiriya oo qalafsana lagu noolaana hadda koor waxa dhacay nin la wacdiysan oo kale waxa la yiri islaanta markay wax ku samayso waa loo mahad celiya waxa la yiri cuntada markay ku keento waa loo amaana markay galaas biya ku siiso shukran alla barakallahu fiik jazakallahu khayran waxay samayso bi kulli saghiratin wa kabira u amaan uga mahad celiha iska cun waa la iska cunaasa la socdaa oo moogta shukran ma wiliis naagtiisa ma dhig ninki markuu muxaadarada soo dhageys asagoo khushuucsan oo guriga yimid islaantii casho soo dhigtay cashadiisii oo jab isku yiri macaan badana oo fiicnaan badana oo cuntadaada macaana barakallahu fiik u ducay marka u ducay islaantu way xanaaqday maxay xanaaqday ma taqaani waxay tiri aniga cawada ma karin hiblaaya karis cawado hiblaaya karis had ka duceeyay miya وأبا مسيرتيبا ورجي يا دمي تجار مصلحة كدعد أركلا دعية كدعد أسجنا محاضرة لسوسي موقتها ساسن إني دعد الله مرة وحال الربع وذات كاج هدا وحورك سوسة ميس أم بقى وحورك تكررته وشاك دين تسانة قبتها كده هذا وحاجره زيارتنا أو دقنه المدة ميان أم كده وين المدة ميان أو أضيق أنا قول ساعده حبرتنا قول ساحد وحال يرادي لون الدوادو تي بشاء سلانت الحقيقة يا ساس مانو ilmaana waa la dhalaa wiligeena isma arkin cawradeena waa lay noloshaas nolol ma aha Soomaa kutubada qaarkood waxa ku taala cawrada qofka kale ay ka aragto isqabaan indhaha la beela waa isla qubaystan isma arkin maada dhahay way